بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin khamiisa taariikhdu ay tahay 14 bisha sagaalaad 2023 waxaan hambaliyo iyo ducaba runtii u dirayaa guud ahaan ardayda maanta ka qalin bedelatay dugsiyada sare ee jaamacadka isku diyaarinaysa iyo ardayda ka qalin bedelatay dugsiga dhexe fasalada 8aad ee iyaguna ka u gudbaya dugsiga sare ama form 1 kolba kaynu naqaano. ardayda maanta dugsiyada sare ka soo baxaysa oo nambarkii ugu badnaa Soomaaliland intii ay jirtay 14,000 iyo charger arday runtii ay ka soo baxday iyo dugsiyada hoose dhexe oo 20,950 arday isku dar marka la eego arday 34,989 runtii ay ka soo baxeen. ubaxaas waa tacab, waa runtii midho lagu soo tabcayo waqti la soo geliyay. dhammaan bahda waxbarashada Soomaaliland runtii waxay u tahay guul iyo faan bay runtii u tahay trainta leeg inay waxbarashada maanta labada heer inay ka soo gudbaan. ardayda dugsiyada sare ka soo qalin jabisay ama ka qalin bedelatayba waxaan u dirayaa hambaliyo, waxaan u dirayaa duco iyaga iyo runtii waalidkoogii ku soo tabcay ee muddada 12 sanadood ahaydba ku soo tabcayay. ardaydana runtii waan u hambaliyeynayaa waalidkii tacabka intaa leeg soo geliyay ee waqtiga iyo tacabka iyo dhaqaale iyo fikir iyo soo jeedba runtii ugu horeyna iyagana waalidkoodna waan ugu hambaliyeynayaa. maantana midhahoodii insha Allah inay goostaan ayaynu rajaynaynaa. waxaa labaad oo u hambaliyeynayaa macallimiintii ardayda wax soo bartay iyo maamuladii dugsiyada runtii ay ka soo aflixeen. macallimiintaasi waalidkoogii labaad bay ahaayeen, iyaga laftooduba har iyo habeen bay runtii u soo jeedeen sidii ardaydaasi guusha maanta ay gaadheen ay runtii u gaadhi lahaayeen. iyaga la'aantoodna runtii may suurto gasheen sababtoo tacabka ugu badan marka laga yimaado waalidka cidda labaad ee gelinaysa waa macallinka waalidkiisii labaadna. waxaa kaloo u hambaliyeynayaa xafiiska imtixaanaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu horkacayo hormuudna uu yahay saaxiibkay Daawud Axmed Faarax isaga iyo tiimkiisa oo runtii tiim isku duuban oo qiimo badan oo u qalma shaqada inay ka soo dhalaalaan runtii ah. tiimkaana runtii hambaliyo iyo bogaadin ayaan iyagana u dirayaa. hambaliyada waxaa kaloo u dirayaa wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta horkacayo wasiir Torno, dhammaan saraakiisha kala duwan ee wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha iyo madaxda kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo isku duuban dhammaanteed iyagana waan u hambaliyeynayaa. guusha maanta ay gaadheen waa mid ay dhammaanteed qaybaha kala duwan oo dhani runtii ay leeyihiin. dhammaantiin waxaan idin leeyahay idinkoo isku duuban oo bahdii waxbarashada iyo bahdii qalinleyda iyo ardaydeeniba maanta ah hambaliyo hambaliyo hambaliyo. hambaliyada kadib ardayda maanta ka qalin jabisay dugsiyada sare waan u ducaynayaa sababtoo 12 sanadood ay wax soo baranayeen way wada socdeen, hal tiim bay ahaayeen, syllabus isku wada mida ayay soo baranayeen. meeshii ay u socdeen bay maanta gaari doonaan oo way kala wada dhaqaaqi doonaan. qof waliba mustaqbalka wixii uu doonayay inuu barto ayuu u dhaqaaqi doonaa. qof waliba jaamacaddii uu doonayay inuu galo ayuu u dhaqaaqi doonaa. qof waliba kooraskiisii mustaqbalka uu ku takhasusi lahaa ayuu u dhaqaaqi doonaa. kii caafimaad doonayay inuu barto, kii engineering doonayay inuu barto, kii militariga u kacayay inuu barto, kii agriculture-ka baranayay, kii maarinka baranayay. nooc kastoo ay aqooni tahay qaybaheedii kala duwan bay maanta u qalin qoranayaan. halkaa markuu ardaygu soo gaadhana 2 su'aalood buu isweydiiyaa: maxaad barataa, jaamacadeed gasha? waa meeshay u gudbayaan. iyagana waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay mustaqbal wanaagsan oo iyaga nafahantooda iyo kawaalidkood iyo ehelkood iyo qarankaba mid ay ku anfacaan inuu ilaahay waafajiyo ayaan taan ugu ducaynayaa.
waxaa ugu dambaysa aan ku gabagabaynaya qaybinta badan aynu ilowno maanta oo kale markuu barnaamijkaasi uu gabagaboobay ardaydaasi dugsiyada sare ay ka soo baxaan waxaynu hambalyeynaa inuu ducaynaa ardayda intooda guuleysatay arday iyo waalidba waxaa jira in kale oo inta badan aynu ilowno waa ardayda aanu nasiib ku siinin inay dhibcihii loogu talagalay inay gaadhaan oo u soo gudbaan ardaygaasoo halka walaalkii faraxsan yahay ama walaashii ay faraxsan tahay iyagu murugo iyo oohin iyo walbahaar guryaha runtii la jooga iyaga iyo waalidkoodba ardaydaa mid baan leeyahay waalidkoodna mid baan leeyahay ardaydaa waxaan leeyahay mustaqbalku maalinun maaha haddaad maanta la weyday maalin kasta way taagan tahay adduunka inay kaa hor timaado caqabad nolosha iska leh waxbarashadaa leh siyaasaddaa leh ganacsigaa leh meel kasta oo nolosha looga kaco waxay leedahay inay caqabaadkaasi uu kaa hor yimaado ardaydaa waxaan leeyahay waa turunturanteena maydaan ku fin guushaa maanta haddii aad dhibcaheeda gaari weydeen berri waad gaari kartaan tu ka sarraysaanad gaari kartaan ha isdhiganin halkiina ha fadhiin waalidkana waxaan leeyahay caruurtaasi hadday dhibcihii loogu talagalay gaari waayaan dhibcihii jannada may waayin waa kuwii adduunka qaybo yaroo ka mid ah intaa ka midkana wax mustaqbalkooda ay ku waayi karaan maaha caruurtiina ha niyad jabinina dhiiri geliya barbar istaaga qalbiga u dhisa moralka u dhisa hubowdhaha ilmaha yaree turunturooda ee kufa ayaa hubo la yidhaahdaa qalbiga loogu dhisaa si uu tallaabada u sii xejiyo kana la mid buu yahay haddaad maanta canaanato haddaad maanta kelmado adag u isticmaasho mustaqbalkiisa adigaa sii dhaawacaya haddaad laakiin laabta geliso haddaad moralkiisa kor u qaado haddaad tidhaahdo aabbo ama hooyo waxba ma aha intaa iyo ka badanba adduunka way dhacaan horu soco berri baad dhibco ka sarreeya iyo kuwa ka sarreeyaba gaadhi doontaa waxaa dhici karta kuwa maanta uu la tartamaya meel ka sarraysa inuu gaadho waanu gaadhi doonaa biidnillaahi tacaala carruurtaana waxaan leeyahay qalbiga ha loo dhiso hana maxaan ku idhaahdaa la dhiirigeliyo ha la berber istaago guud ahaan anigoo ku hadlaya magacayga anigoo ku hadlaya magaca maamulka jaamacadda saraakiisha kala duwan iyo bahweynta admas hambalyo ayaan u dirayaa runtii guud ahaanba bahweynta waxbarashada somalilan iyo gaar ahaan ardayda maanta dugsiyada sare kasoo qalinjabiyey ee jamhuuriyadda somalilan dhammaantiin hambalyo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu